السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسو دوادا موقال كان ميعيوا بايلوت شوتة مقعاس هالكوكا إمادي مقعاس ومقعي عبد القادر عبد السلام محمد. أنا عبد القادر هاي أو بايلوت نقضي به عبد السلام محمد وأبوي أم أبكوي سيدات وقرنيسين أو شوتة نانيسيس هانجرتي شرال كان وحلو أبابولي وإن أن isdhiiri gelino kala faa'iideysano oo horumar gaarno marka wax walba adduunyada go'aan ay u baahan tahay wax kasto inta go'aan ka qaadayn saddex shay ayaa jirto go'aankaas waxa ka horeeya waxa koo inaad hamiso ka fikirto oo waqti geliso saddexdaas shay marka la helo ayaa qofka u hergala go'aamankiisa inuu ku dhaqmo waxa imaanayo su'aalahaas oo jawaabo u baahan waxa ayaan ila wadaagi doonaa information muuqaalo su'aalo iyo jawaabo marka waxa ayaa ugu horeeyo su'aalahaas waa maxay duulimaad waa in aad ku dhaqdhaqaaqdo hawada si xornimo leh adiga oo aanan dhulka taabanaynin su'aasheena labaad yaa noqon karo duuliyo qof waliba ayaa duuliyo noqon karo muslim iyo gaal rag iyo dumar da'weyn iyo da'yar muslim iyo gaal waxa ay cadeen u ah shirkadaha caalamiga sida Turkish Airlines, Emirates iyo Qatar Airways marka aad aragtid shirkadahaas yaa u duuliyo muslim iyo gaal ayaa duuliyo u ah su'aasheena labaad qaybteeda labaad rag iyo dumar yaa duuliyo noqon karo dhammaan way noqon karaan rag iyo dumar see ku noqon karaan example aniga marka aan dhigan jiray gabdhii weel ayaa isugu jirnay waa gabdhaha way yaraayeen hal iyo labo laakiin gabdho way dhigan karaan su'aasheen labaad qaybteeda saddexaad yaa noqon karo duuliyo da'yar iyo da'weyn dhammaan way noqon karaan duuliyo sidee ku dhacda ayaa la dhahaa anigoo da'yar ah oo 17 sano jiro waxa ayaa la dhigan jiray kalaaska oday weyn oo professor ah iyo 50 iyo xoogaa sano jiro 50 iyo xoogaa sano asagoo jiro isku kalaas ayaan ahayn waxa ayaan ogaaday anoo 17 sano jiro inaan duuliyo noqon karo sidee ku dhacday sharciga caalamiga wuxuu sheegayaa oo 15 sano jiro qofka bilaawi karo waxbarashada duulimaadda markaa bilaawday barashadeeda waxa ayaa laga rabaa inaad dherer macquul leedahay mitir iyo 40 iyo ka badan waxa ayaa lagu ogolaanayaa in aad barato duulimaadda marka aad barato duulimaadda waxa ayaa lagu dhiibi karaa diyaaradda si kaligaaga ah solo ayaa la dhahaa adigoo oo 16 sano jiro sharci ahaan ayaa lagu ogol yahay waxa ayaad qaadanaysaa diyaaradda kaligaaga asoo qof kula soconin ayaad ku wareegi kartaa in yar oo lagu xisaabtamayo kadib marka 17 sano jirtid waxa ayaa lagu ogol yahay inaad qaadatid laysankaaga ugu horeeyo oo la dhahayo PPL ama private pilot license laysanka gaarka ee duulimaadda waxa ayuu ku hergelinayaa ama ku fududeynayaa in aad duusho adiga iyo asxaabtaada iyo familygaaga oo diyaarad ijaarato adigoo aanan shaqayn karin oo qarash lacag ku qaadan karin markaad gaarto 18 sano sharci ahaan waxa ayaa lagu ogol yahay inaad qaadatid CPL ama commercial pilot license laysanka ganacsiga ee duulimaadda waxa ay ku hirgelinayaan laysanka inaad duushid oo shirkado u shaqeysid oo qarash ku qaadatid oo nin kaaftoon noqotid oo asaga shaqeysanayo marka duulimaadda sida loo maleeyo ma aha aad ay u fudud yahay waxa kaliya laga rabaa waa practice badan oo tababar badan kaliya ayaad u baahan tahay su'aasheen saddexaad sidee ku noqotaa duuliyo waad inaad barato haddaad rabto inaad barato duulimaadda meel walba ayaa laga baran karaa ma aha kaliya Mareykan iyo Yurub inaad laga barto waxa ayaa ku suurtagelinaya arintaas hay'adda caalamiga ee duulimaadda International Civil Aviation Organization ama ICAO waxay ku suurtagelinaysaa inaad meeshaad rabto ka barato duulimaad si fudud markaad barato waxa ayaa wadan kasto ku dhaqma sharcigaas oo ICAO soo dejiyay haddaan Soomaalinahay waxa ayaa u baahannahay inaad helno wadanka oo baasaboorkeena ama sharcigeena tixgelinayo haddaad duulimaad baran rabtid meel kasta ayaad ku baran kartaa ee wadanka ku tixgelinayo sharcigaaga ayaad ogaanaysaa kaliya kuma xirno sharcigaaga Soomaalinimada iyo barashadaada duulimaadda iskuma xirno kaliya wadankaas oo sharcigaaga tixgelinayo ayaad raadsanaysaa asbaabta video loo sameeyay waa inaan isku baraarujino aviationka gaar ahaan flyingka duulimaadda inaan Soomaalideena fara ku tirsanahay oo Soomaalida khariidadaas maapka 7 ku nool aad inaan ugu yarnahay dadku noogu soo dhow oo aad u bartay waa walaalaheena oo Soomaali Kenyaan ama Soomaali Sujuuga dhammaan asxaabta
meeshaan ayaa ugu dambeyso videogeena waxa ayaan ila wadaagi doonaa muuqaalo 8 sano aan duuli ahay muuqaalaha aan soo duubay daawasho wacan in aad ka daawashada videogan meeshaan ayuu ku egyahay qofkii faahfaahin dheeraad u baahan consulting talo information question su'aalo oo qabo waxa ayuu igala soo xiriiri karaa social media Gmail pilotshooty@gmail Facebook Instagram Twitter social media dhamaan isku username-ka ayaa leeyahay waa pilotshooty hoos ayaa ka heli kartiin sidoo kale like share subscribe saar channelkan si aan ugu soo kordhino mowduucooyin oo aad loogu faa'iideysto salaam